madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku sugnaa madal lagu xuseeyay sanad guuradii 26 jirsatay ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Somaliland ayaa wax halkaas mar uu khudbad dheer oo taabanaysa ahmiyadda uu ciidanku ugu fadhiyo ka jeediyay uu sidoo kale halkaasi kaga hadlay arrimaha qabsoomidda doorashooyinka iyo sidoo kale kala diridda Kumishanka Cusub waxaanu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sheegay in caqabadihii sidoo kale qabsoomidlaantii doorashooyinka haatan laga soo gudbay saddexda xisbi qaran iyo xukuumaduna ay haatan ka tashadeen sidii ay u qabsoomi lahayd doorashadu waxaanu madaxweynaha Somaliland sheegay in haatan xisbiyada qaranka ee mucaaradka ay u diyaar yihiin inay qabsoonto doorasho ka xukuumadahaana ay diyaar ka tahay inay qabsoonto doorasho hase ahaatee komishankii hore ee haatan xilkoodii dhammaaday iyo sidoo kale komishanka cusub oo hoosta ka xariiqay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay inay labaduba isku mid yihiin qarankana ay meel ugu wada jiraan haddii ay ku wani qabtaan iyo haddii kuwa hore ay qabtaan waa sidoo hadalka u dhigay ay isku mid yihiin haddaba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo madashaasi hadaladani ka jeediyay ayaa waxa hadaladii uu yiri kamid ahaa dhammaan ummadda Somaliland iyo qaranka Somaliland gaar ahaan ciidamada oo dhan iyo ciidanka maanta ay joogno xuskiisii ciidanka qaranka taliska wasaaradda jananada saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo xaasaskooda waxaa la habariyo ilaahayda sanadka hadduu gaarsiiyo barwaaqa iyo bashbash weli ma qoran taariikhdeedu ciidanka qaranka Somaliland lama dejinin taariikhdiisa laakiin markaynu ciidanka qaranka Somaliland taariikhda bilaabayno waxaanu ka soo bilaabaynaa markii ugu horreysay ee Somaliland protectorate la bilaabay ciidankii ugu horreeyay ee qaran ee la bilaabo hore loo sheegay muraasooyinka ka horreysay 100 iyo waxaa laga joogaa marka 9 sano iyo 900 ahayd sayid baa laga bilaabay markaasoo la sameeyay xadka Djibouti oo markaa Faransiis gumaysanayay iyo British Somaliland u dhaxeeya halkaa laga soo bilaabay ilaa maanta ciidanka qaranka Somaliland ay wuxuu soo hayay taariikh isbedelo horumaro iyo waaray duruufahooda tuul eraanayna taa maanta waxa ilaahay hadiyay in ciidanka qaranka Somaliland muddo uu jiray aan gobolada la soo noqonay maanta saddex sano ah intii uu jiray inuu adkaaday oo ciidan qaran noqday waxaan u sheegaynaa dhammaan caalamka inaguna nafahooda u sheegaynaa kuwa kalsooni ka dhiman tahay aynu ictiraafin waxaan u sheegaynaa ciidanka qaranka isaga oo layna ictiraafin ayuu ku xoog leeyahay ciidamada ku ictiraafin ka rasiidada wanaagsan yahay ka aqoonsi badan yahay ka aqoonsi badan ciidanka qaranka waa soo intaanka waa laga sheegay ku noqon maayo waxaan sheegayaa ciidamada qaranka sidii kala duwan dhammaantood muddooyinkan dambe oo qaranku uga mahadnaqaya iskaashi wacan oo amni iyo xilkii loo saaray ay guteen maanta waxa si wacan wada shaqeynaya oo isku xiran ciidanka qaranka ka booliiska ka asluubta ka socdaalka ka badda iyo ka waddoonka oo haddii ay isu baahdaan dad inay dhexdooda ku celiyo wixii aan loo weydiiyo taasaana ku sugay amniga midkooda ee dadku jooga cadowga mudaafaca waayo waxaa la taliyaashooda iyo dhammaan xubnahooda iyo hawsha qaranka waxaya adduunyada magaca uu joogaa meelay uu joogaa ciidamada qaranku waxay doorteen nooca yihiin baa oo ciidanka qaranku ugu horeeya in magaca doortaan dalkana waxa la tagaa ee aan dheefooyin waa ku amriyana doorashadooda iyo qaranka hawsha ay qabtay ciidanka qaranka haddaan intaa ku dhaafo iyo munaasabadan maanta waxa kaloo hambaryada ku soo gabagabeynaya kooxdii halkan gaashaan oo runtii iyaguna misaasila barnaamij waxaa noo dhigay aad iyo aad baan idin hambarinaya taasi waxayna tusaysaa Somaliland inay leedahay dad mufakiriina dadka la yidhaahdo way heesaan way gariyaan waa awaan runtii waa dad mufakiriina waa dadka odolsan dadku waxaan arkan intooda badan waa dad ideer oo cabiraan nolosha waxay tahay dhinac walba dhammaan dadka fakirina waa u mahadnaqayna gaar ahaan kuwii maanta inoo soo jeediyay fikradoodana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna haddii aynu danta guud eegno maanta caalamka waxaa ka jira isbedelo badan
nin walba halkiisa ayuu ku daamaya oo ku dhibaataysay dad badanwaa ictiraafsan iyo daala aqoonsana been mahayo faqri been mahayo dadka warwarka iyo mustaqbalka xudurka ah warwar badan iyo walaac bay muujiyaan markaasay dhalinyaro badanna niyad jabiyaan markaasay dhalinyaro jaholataan qaar tahriibaan qaar meel kale isu qaadaan oo ay nolosha meel gaaban ka arkaan horta waxaan u sheegayaa dadka warkaa u sheega ee adduunyada xagga xun ku arka ee aan xagga fiican ka arago qofka aan su kalsoonaan ilaahay aaminsanayn baa taa qaba marka leeyahay waa ictiraafsan adduunka waxa ugu ictiraaf weyn oo lagu tixgeliya waa maraykanka waxaa la yidhahdaa madaxweynaha maraykanka ayaa qofka adduunka ugu awood wey waa isku waraacsanba weligaa waa qaado badan badaha caalamkao dhan diyaarado iyo maraakiib diyaarada xambaaraya iyo gujisyo iyo cirka qaar joogo oo dawaafeynaya maanta madaxweyne maraykanka maxkamada gudaha gudiisa ka saaray beriisa waad haystaan labada xisbi oo arkaysa wax ka dhacaya baa wataa nin waliba halkiisa intuu waasatay adduunka waayo nolosha ayaa ah dhibaato bini-aadmiga loo diray qur-aankaa sheegay in bini-aadmiga maantu dhasho ilaa maantu huranayo uu dhibaato xalinayo qof waliba intaankiisa iyo halka uu joogo maanta waxa adduunkooda ka dhaxla taariikhda oo layidhaha dimuqraadiyadda iyo ilbaxa iyo taariikhda ingiriiska ugu facweyn ingiriiskana maanta duwa horeeyey oo halaga baxay yurobeedi isaga ilaa kaleeyo maanta oo asiay soomaaliya faryadeeda mid xoriyada soo yahay oo adduunyada duula xidhoodooya oo bulsho cusub caawa ku furaya oo arkaysaa wax ka dhacaya oo hareeya maalin seexada dadka la taajirsan bariga dhexiyo xiriishiya carabta maanta tahaysataa cidna ma haysa inagaa wanoo seexanayna ninkanisoo joogo caawa nabad ku seexanaya ma jiro ilaa iyo sacuudiyaad haysta qatar iyo abudawlaad haysta iyagaa barwaqadiisan jiiday nin walba caawa fikrad buu ku seexanaya iyo werwer iyo walaac iyo toba maxay noqon waa cidii dhaata ma jirto intaa nabad ku seexanaya dadkii ma haysta ilaahayna aaminsan maaya ka dooleeyey kaa markaan dhaafo markaynu eegageesa afrika aynu ku noolahay maanta waxa ka socda isbedel cajiiba caawanina iyo dad caawa somalilan ay jabtaysaakaasaa kaa nabad badan ama kaa walaac yara ma jiro suudaan waa aragta wixii ka dhacay saaka masar looda egypt iyo etoobiya iyo masar waxa ka dhaceeya biyaha isku haystaa midkooda masar looda wax ka dhacey allaa og etoobiya isbedela cajiibaa ka socda oo adduunkooda eegayo oo aad u rajeynaya ka noqon karaan isbedelada soo socoynaysta nabad ku dhamaystaan waa jahalkeeda barwaqadeeda soo gaaraa jahalkeeda dabkiisaba ay soo garaa dabka muqdishoda oo socdaal ugu furan jahalkeeda kamid ahay dabkaa ka deliyo kuwa iyagana ka deliyo iyana etoobiyana caawabaarkana waxyaalaha ka socda koonfur hadalkeeda daah hamarkii soomaaliya solkiisa dadweyne ducaynay ilaahayna ducadii weli nagama wada qarin oo waa duwanaya iyagana wali talama helin inaanaba nagu haya kenya waa arkaysaa madaxweyne buxiyeynkii baa is haya weliga ruutu ilaa dowladda wala saaraya waxaa isu soo noqday rayla iyo ninka adugeeda maaragtay loola tirayay labada aabayshaysteen eeuhuyo oo labadooda dhixankii isku qabsadeen siyaasadda oo laba qoysoo ku hadgaba kenya aha ayaa maanta isu soo sanqanaya oo kuwii kalena kala geeyaya oo laga yaaba imika soogaadaami bedelaan waa adduunyada nin wadaan ku seexanayaa ma jiro dhibta adduunka waa lagu talagalay bini-aadmigaa xaliilaa ka mid baynu nahay sidaasuu ilaahay nagu doolanay oo muwaafaqa iyo nabadina siiyey waxaa adduunkiisu weyaaranayo ee nin walba ku dilacsan tahay maanta somaliland sanadka wuxuu ahaa sanadkii nabadda iyo midnimada iyo isafgaradka dhibaatooyinkooda dhan ay ku xaliisay iyagoo ciidanoo soo dhuuman laba sanwee cadowgeeda wuxuu warinaya dagaalo qadaa'ida qaar dhexda ciidamada ah qaar kale oo boorbogaadha ah wax walba awga soomaaliya isku dhayay Soomaaliya daba sano iyo weligeedba uu dhaliyo ku gudbiyo waxa ilaahay maadiya iyo ciido soo gurman oo ciidamada sidoo loo keen oo ma aqoon hada loo keen oo ciid inoo taageen in dadkeena oo shacabku koobiyahay oo haweenkii aan isku wadi leeyahay muddo jecel oo odayo ka yahay oo sheekhu ka yahay oo ganacsiga ka yahay oo aadwaanada markii hore saytay koox u raaceen gaalo tagay inuu labaatan abwaan mid walba dhigu dacay ka jeediyay oo kii ka haysay oo kii wadamayo waa ka sheegay oo dawlad iyo dawlad soo tagay in maanta dalkeena gees ilaa gees nabad u saxayo been heshiiyay cilmi saabuhu saasaa heshiiyay axsaabtii qalabka ka heshiiyay oo shayada loo gasho iyo fasoo hadin mooyaan
guushaan ahay musiibada waxaan u baahnay inuu sii wado awlaashooda ku dhaxlay talada markii Soomaali weerarsa xornimada shanta Soomaaliyeed ay soo qaybineysay waxa laga bilaabay Somaliland iyadoo horseed ka ahayd midnimada Soomaalida horumarkeeda wanaaggeeda iyada ah dhammaan gabyaaluhu ku bilaaba Hargeysa waa hoygii suugaanta waa hoygii oday martida waa hoygii Hargeysa odayaashoodii iyo burco iyagaas caalamada iyo boorame Somaliland isu wareegay taa ay noo bilaabeen dhaqanka ay noo ahayd ee aan inaynu Soomaaliya ka tago xagga hore inoo eego aynu awayaasha ka dhaxlay ka awoodaan ka awood ee aan arkayso inay Soomaaliya tahay Afrikada kuwa mid yar oo mooyaan ee la gashay isticmaalkii heshiiska Kenya iyo reer walba u yimid la saxeexday dhammaan heshiiska mid ka bilowsayna ilaa iyagaas oo heshiiska la gaaray isticmaalku wuxuu ahaa dalkeena annaga kuma qali kartaan markaa u baahan inaad u guuleysaan talada oo dhaafmaysaa ma jiro dad Afrika oo heshiisyada qortay waa waxay wada raadisay inaga oo taasi ku tallaabtay Soomaaliland taariikhdeeda maanta waxa la rabaa Soomaaliland inay iyo horumar iyo isku tashi samayso kuwa dhiban ee jaarka iyo Soomaaliya waxba ku aaday muwaadiniinta inay ku midoobayaan talada loo baahan yahay duca loo baahan yahay oo kaysi dhibaatooyinka loo tasayirtay inay hayaan inta tala hayso weey shacabka Soomaaliya ee maanta Kismaayo jooga ee xamal jooga ee garawa jooga ee jooga u samareed waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin taw cidda ugu sakaysa u kayso yeena waa inaga haddii uu kuwa ku dheeray carruur oo ugu dhigay inaynu wax u qabanno oo inuu horumar sameeyo kuwa madaxda ee saddex sano leeyahay ee isku diraya ee kuwa maanta jooga todoba isku diraya oo samareed dadka degan ما تسوي سكوا ما نتوه يا الله يرحم خسارة وما كوا ترى كسب اليوم عالم كلا إسرائيل كل هذا ترى الصومال كم غلبان صومال أنا أقولها قرطوي مجال مجال سوريا وكيسان إسماعيل وكيسان بايرا وكيسان بيرو كوا كلا سائر ويا أوكرا حقنا هي كي أول اعتراف بالبلاد هي سفارة هاي كلا سوداء inaga oo wax dhibaato inuu hayaan ma ahan inuu waa tala qolo ay Soomaaliya ku jeediyaan kuwa tala hayaan kuwa hal isku daro halka maanta waxa qaltaaga ma jirto meesha waxa ka socda waa dacaayad iyo propaganda iyo TV la isticmaalo oo aan cidna u dareeyin marka inuu Soomaaliya maanta ay la gudbo Somaliland xukuumadda maanta hogaaminaya oo sanadada waxay isku geysay marka hore saddex qodob waa in dadka laga taxsiiso dhibaato kasta oo aan waa in loo maro hab nabada waa in la yareeyo khilaaf kasta khilaafku waa dadka oo kale dadku markuu waa qoonto waa xiraa markaas la damiya dowladda siyaasadda waxay khilaafka bini'aadamka oo dhimaya dowladaha isku dhacaya beelaha isku dhacaya xisbiya isku dhacaya waxay u baahanayaan khilaafka marka hore in la koobo dadka kala duwan laba in dadka la mideeyo oo dadka maxaa yaala dadku way isku hayo maanta waa saacadooda way isku hayaan gabar iyo barno way isku hayaan ceegaamiyaha bisoo jooga way isku hayaan maxaa dhacay muddo dheer oo qas iyo qalaas dalkeena ka soo joogay oo ku sidan boqolaal sano ilaa dagaalkii labaad ee adduunka ilaa maanta geeska Afrika ma hor u yahay nabad kooxda ciidamada isku dayay u fiirso awooda weeyaan kooxda joogta ka toosay aan aristo walaasha la galay oo ku beertay micnaheeda ku haysan waa sport barnaamij wada sii weeyay ku koobay adduunka oo ku jirto soo intay erko oo si kuwa koonfurta ee dowladda ee la baanday waa kuwii bariga galay markii xorriyadda la helayna hoggaanka waxa noqday ee sii socday waa dagaaladii la oran jiray dagaalka qabow ee labada qaybood oo dalka Afrika oo baa kii in saameeyay oo ka badalaya waxa ka badalay Hadii weligees Afrika ugu soo jira bas waa la qaba gees Afrika lama qaba waxa qaba maadaama dhibaatada Soomaaliya ay ku horeysay oo jabalaha iyo dagaalada shabaabka ay gashay
inay Soomaaliya noqonaysa ta ugu soo horkabata ee ka baxda ee dhammaan soo yiraahdo doona ee loo soo noqon doono ee kuwa maanta indhaha ka leeyanaya ma ictiraafsan ayagu ima doonay ictiraafi doonaan waa hadday reereeyeen midnimada khayr kanano ilaa noqotaa intii hore way soo qabanay oo way soo dhisan maanta waxay taagan marxaladii ahayd koow nabad laba midnimada saddex horumarka waligeed ay dhacday inta la sameeyo waligeed laakiin waxa la rabaa qof waliba inuu ka keeno oo maxaa la rabaa qofka suugaanka taajirka xaajiga lacagta siyaasiga kaleemiga waxa laga rabaa oo hore u marayna marka aad waxa naftaada jeceshahay walaalkaada jeclaato waxa iftiinay marka aad qol iyo qunjaaco marka aad xantiisa waajiso ee aanad balaayo horseedin ee balaayo aan noolay aanad fidin sida dhacdo marwaba taasaad ku gaaraysaa oo horumarkaaga oo saad meel ku gaari mayno maro kala oodan oo ay balayeen inaysan gool ku gaari mayno asxaan iyo gool soo horumarayeen ku gaari mayno hargeysa oo soo yahay maxay ku yaraysaa iyadoo inay aanad Soomaaliland tahay oo taariikh ka guurto oo degi karta asxaan oo dadka ammaan adiga iyo xoolaha inta ku karto inaad asxaabada ku xiran tahay afta diyaar aan ku wareegsan asxaabada waxa ku tabeeya hargeysa inta asxaabada taado oo ka soo bandara yaa guddiga Soomaaliland xeerkeedii disteedna ogol maxay ugu soo dhaweeyna maxay ugu dhaweeyna waxaan ku tabeeyaa maanta in aynu kan bilawo qaranimada horiska taasoo horumar loo keenayo dabcan faqriga bayna waa run faqriga xeerka laga bixkaa bareer loo bixi karo maanta waa sameeyo dagaalka aynu sameeyno ilaahay wuxuu leeyahay waxa inoo haynaa oo maanta beer oo Soomaaliya gacantooda ku gaartay oo kay ku haysaa hay-adda kawtada afeeyada gacanta haysa raashin ku filan kara ilaa 3 boqol hadii ay wada dhacdo inta aan soo gaaray inuu caawa xamaye iyo waa talaabo waa taas soo xoojina go'ol inuu beer kara taale raashigaasi maanta waxa uu ka soo baxay 3 meelood kaliya hadday aan xoolo tahay iyo hadday xoolo tahay waa beer iyo aaxi iyo wajahay boqolaal meelood ka beer kara waxay ka caramayaan biyaha rasiyo way qodob ka dhaqaale iyo awood ay isu jeed haday isu deeyno biyo xiraamo gobolada hawada ay ku biyo karo waxa yaaba dhaanka ama xafiido waari kara magaalada isjeed ee u baahan 500 kun $500 joogiisa iyo taasigiisa iyo xoogga isku leeyahay way xirana inta gacanta hoosana leeyahay ilaahay loo qaado waa arrin isku leeyahay waxaan ku soo ururinaya Soomaaliya maanta waxay leedahay distoorka waxay leedahay laba golo sharci dejinta iyo waxay golaha deegaanka iyo madaxtooyadu waxa koob ka ah loo ilaaliyo sharciyada qaranka iyo distoorka si loo ilaaliyo waxa koob ka ah iyagu laftooda hay-adaha loo doortay inay ilaaliyaan distoorka wuxuu qorayaa doorashada iyo xilku waa 5 sanadood dhammaantood baarlamaanku waa 5 sanadood madaxtooyada waa 5 sanadood dowladda waa 5 sanadood walaalayaal maanta si uu distoorkeedu u sii jiro si qarnimeedu u sii jirto si ay hore u maro si ay markaas aan soo baxno dhammaanteen waxay wajibayn xoog saaraysan doorashada qoranahay doorashada waxay loo joogaa waa findhici waa waxa dowladda kale saddex xisbi qaran ee mucaaradka waxay isku raacsan doorashada dhammaan shirkooda isku raacsan doorashada dhammaan golaha baarlamaanka fadhiyana waxay ogol yihiin inay muddo dhaaf yihiin oo loo baahan yahay doorashada toban ka dib waqtiga fadhiyo doomuhu iyaga waa diyaar maxay u qabanayaan yaa ka shaqeynaya macallimiinta soo dhexgalay iska fahamsiinaya mada qomayna nacayaan inta ay dhex taalay dawlad leeyahay waxayna ku weynaa 2 sanadood hala bedelo commission doorashooyinka hala bedelo iyo sharci ma aha haddana waxay baroon kala doortay sharci ma aha iyo la bedeli kara in kala dooro waxa soo doorashada ugu joogsan karana guddiga doorashada hore waa kama maarana kuwa dowladda doortay inaga dooranay waa sharci waa dadkeedii iyaga
والأمانة ترى سوتنا سوف يصير صنوات قلوبنا إن شاء الله هو القانون دولنا قبل سودا بفعلنا حتى إنها يومتها أنت ما إنه أدور دستوري ما إنه ضرب دوشة والخلق يسوى هنا فينا وحسوت إنه الأمانة بتمثل دوشة ولا عن سوته عمادك ماذا وحول الصومي وحياة الأول يقوم عليه وحكمه هو من كبير الرئيسي بقول يوم ليس كان له تابع يدرك ويكمل يتابع بلاد أجل يدرك ما بلين يوم تابعه وحقوا بلين يوم بيش شقاقرة وإن كان لهم يعني يتدور بحثين لك إن يصاب عشان تابعكم وحقوا بلين إذا مرة كان واحد ضميني حاكي عكسية إذا مرة قرب أولاً وأنا نقولن إذا مرة قرب مركي جوال أي قرب وهي المال الثاني في بسهولة marka soo leeyahay sanadkan bilaawo brand doona in lagu arko oo qofkii taargeeruba amana foobe ciidamada kamid kulba tabadir waxay tahay ugu badan ay noqoto in barabada noqoto in xaq siiyo iyo xuquuqda ciidamada beeshooda in la soo laga taas oo lagu doono shaqaalaha dowladda waa isaga loo raacin doono waxaan ku leeyahay ciidamada qaranka oo doonaya halkan inaan ka xuso إيه علم الدلال بلد وجه سنتك قال عن عيلة عصوته اسمه يا بدن يدلال بدن يبكسر يقول أنت بدون كذا بقى حوله علم عصوته سنة كده يوتو وأن فتح على من يجي للتريح عيلة قبل الله محمد تفضل فتح بسم الله دوري دخل الدين أيها واحد لا يمشي واحد لا يقول هو شهادي ما توانا وين خياله ترى بيجي يقول الدنيا يا سيدنا سؤال لا يقول لي برنامج شيء يقول لي لا هو صحيح هذا هو معي ما أنت فضل التوي الكحيل يسمع عن سير شيء هو يقولي تذكر أهل يعني الرجال والله وحني شيء قال كل اللي بقرار فضل بقرار اللي بقرار لمية وأنت سوى لك في حاله خليه هو كان يسوي هاي يسوي يعني dadku aad iyo aad loo mahadshaqeeyo ma jirtaa sida waxaan u jeedinahay wasiirka hawsha maantana dhammaan ciidamada qaranka talooyinka ay qaadeen oo kuma inoo waa inay ka sii xoojiyaan marnaba baan hambalyeynaya maslaxad oo hambalyeynaya guuriga goobna loo xoojinaya dhammaan Soomaaliland midnimo nabad iyo horumar waa saddexda mabda wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh